daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena dhambaal marka hore waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel kasta joogtaan gaar ahaan Soomaalida ciid wanaagsan maanta barnaamijkeena waa su'aalo ku saabsan arrimaha deegaanka Soomaalida loo yaqaan ogaadeen ama Soomaali galbeed maantana waxaa martino waa barnaamijka mas'uul aad oo taqaanaan waa mas'uul ka tirsan golaha dhexe ururka ONLF mudane Carab Maxamed Aadan marka hore waxaan leeyahay mudane Carab marlabaad ku soo dhaw barnaamijka dhambaal aad baad mahadsantahay wariyaasad aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo barnaamijka dhambaal martaqaadkan aad maanta ugu martaqaadeen waxaanan sida maaragtay munaasabadu maanta ay tahay munaasabad ciid ay tahay aan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta caalamka meel kasta joogaan kullu aamin wa antum bikhair taqabbal Allahu minna minkum min al-aaidiin al-faa'iziin aad baad mahadsantahay Mas'uul Carab waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay bal waxaan noogu warantaa ururka ONLF xaaladiisa wariga wad mahadsantahay ururka ONLF aad buu ugu wanaagsan yahay xaaladiisu waxa uu ku jiraa hawlihiisii maalmeedka ahayd shaqooyinkiisa caadiga ahaa walow ay xanuunadan caabuqa coronavirus ay wax yar xakiyeen dhaqaaqyadii iyo abaabuladii faraha badnaa looga bartay ururka ONLF haddana ayagoo tixgelinaya maaragtay nidaamyadii lagu ilaalinayay barnaamijka lagu yareynayay runtii way dadaalayaan waana fiican aad buu fiican ma sha Allah jiziyaadi aad baad mahadsantahay marlabaad su'aasha kale ku xigta ayaan galayaa deegaanka maalmahan qalalaasa siyaasadeed oo u dhexeeya xukuumadda Mustafa Cagjar iyo baarlamaanka deegaanka ayaa ka dhacay marka ONLF ahaan sidee baad u aragtaan qalalaasaas runtii qalaasahaas waan arkaynay waana mid inoo muuqda mid ummadda ka qarsoona ma ahayn mid bulshada oo dhan ay arka waxaa si kooban waan ugu xunahay in qalaase maaragtay noocaasa uu maanta ummaddii Soomaaliya dhexdeeda ka dhaco waa runtii waa wax laga xumaado weeye arrin xadaaradda aan ku qurux badnayn horumarka iyo maaragtay xadaaradda maanta la filayay in deegaanka ku tallaabsado ma wanaagsan khaasatan waxaa runtii ayadana maaragtay calool xumi ah iyadoo maanta aan ognahay 80 milyan 100 milyan oo qoomiyado kala oo wadanaha Soomaalida aad iyo aad maaragtay uga soo horjeeda oo wanaagooda rabin ayagoo daawanayaan maaragtay publicly si media maaragtay looga wada arkay social media loo arkaa la soo caarsado oo saa maaragtay la soo fadeexaday ma qurux badnayn waxaan maaragtay leeyahay inay ka waantoobaan mustaqbalka arrimaha noocaasa wixii jiray ee khilaafana maaragtay ay xalistaan laakiin in maaragtay media oo maaragtay public ay si loogan cadawgooda ay qurux badan okay waan garanay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mudane waxaa jirta barta Twitterka mas'uul lagu magacaabo Faaruq Warfaa ayaa waxaa loo soo mariyay eedeyn ururka aad ka tirsan tahay ama xisbiga ONLF oo lagu eedeynayo inay ka dambeysay khilaafka baarlamaanka ee xukuumadda u dhexeysa arrintaas maxaa Twitterkaas waan arkay runtii Twitter wuxuu xaqiiqada aad Twitter kasta ku qorneyd wax la yaabo ay ahayd aad baan u taxajub noogu noqotay waxaan meesha u olin wax ku qornaa ONLF TPLF oo Tigreegi markaa ka wada iyo qolyo eega la yiraahdo baa soo baxaystayna qalaasaha ay abuuraan waxyaabaha aan isqabanin xisaabada aan isqabanin boorka isku dhufsaday ninkaas maartay balkan Faaruq Warfaa waa ka xumahay waan dhalinyar ah siyaasadda ku cusub marka waxa iga muuqato gabadh dhacdayn siyaasadeed oo iga muuqata
laakiin anu shakhsiyan isagaba hadda kuma eedan twitterka waxaan u arkaa xukuumaddu ka mid yahay hadalka uu twitter ku qorarto waa fikir xukuumadda aqoto aan aaminsanahay ma ahan mid isaga si shakhsi isaga qori karayo isaga waxaan ugu naseexayn lahaa isma qabato oo LF iyo Tigreeba u bahoobay maaragtay inay deegaanka wax dhibaataan halkaas isma qabato waa mid labo xukuumaddu arrintaa waxaan u arkaa maaragtay dhaliisha dhexdeeda ka jirta iyo fashilka siyaasadeed ee jirta ayay meel ay madaxa u saartay ay weyday marka waxa weeye nin daad qaaday xunba cuskay baa aniga meesha iga muuqata in ayagu siyaasadoodii meel ay intay dhexdooda isku eedeyn waayeen accountability qaadan waayeen inay maanta ONLF iyo TPLF iyo heego tushoosa ereyga markay soo jiita waxa ka mid ah heego heegada horta lagu dabawado oo arrin la yaab heega haddii heega waynu naqaanaa waa xisb amin urur dhalinyar ah lagu ekaa marka cabdi meesha uu kasii tegayay uu sameeyey marka say u dhanaayeen heego haddaynu maaragtay la socono maamulkii ka mid yihiin say u dhanaayeen wax ka maqlan ma arkin inta lahaan gobolka doola maanta guddoomiyaheedu waa ninkii funaanada weyne heega ugu qornayd kuwan maamulka ka midna waa ayagii marka waxba heegayna iska soo rarin waa xukuumadooda ka mid tahay ama hays nadiifiyaan ama maaragtay waxba heegayeenan aad dadka ugu eeday aan ka gudbo waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo kadib khilaafkii baarlamaanka isbuucii hore waxaa jira jidil xeeray loo geystay xubno baarlamaanka ka mid ah iyo siyaasiyiin deegaanka caanka ah sida siraaje aadan ninka la yidhaahdo oo activisti ah iyo maal xasan iyo kuwo kaloo badan marka falalka noocaas ah ee xukuumaddu ku dhaqaaqday sidee warta runtii waxa weeye waa ka xumahay waxa meesha yani arrimahan ka soo yaray jigjiga jibdilka xidhayga ah mid aan qarsoonayn social media dhex yaala waa arrin inta laga xumaado maanta deegaankeenu uma baahnayn ummadda maanta in jibdil dambe loo geysto kadib inagoo og dhibaatadii ay dadkanu soo mareen ma ahayn mid loo baahan yahay kow labaan u kala qaaday mid waa xidhay midna waa jibdil labaduba wax yani maanta loo fadhiyay ma ahayn waana arrinaan aad iyo aad aan u cambaareynay shaksiyan waxaa ii muuqatay oon arkayay misaal ahaan runtii gabadh shacab ahayd oo la dhalatay videoga facebookan ka arkay la dhalatay wiilkii maxamed colaad oo ahaan jiray la taliyihii madaxweyne mustafe oo la jir dilay suuxday oo dhacday baan arkayay facebooka dhex taallay arrintaasi arrin falxumay gabadhaas wax maanta ay lagu sababsanayo oo maaragtay khalad ay samaysaan ma garanayo haddii ay jirto wax khalad oo iyadoo lagu hayana waxay ahayd iyadoo la jir dilay intii la qabto in la geeyo maxay ahayd sharciga la horgeeyo wixii lagu helan lagu markaa la mariistay sharciga lagu qabo laakiin in dadka la jir dilo sax maaha xidhay haddii ay xukuumaddu jirto dadkan ay xidhayaan sabab ay ku xidhayaan ama maaragtay wax dembi ay galeen waxaa wanaagsan in ay usoo bandhigaan waxay tahay laakiin xukuumaddu waxaa muuqata hadda xogaha yaalla maartaan helayno ma muuqato wax hadda khalada oo muuqdo oo weyn oo ay sameeyeen oo lagu xukumi karayo ama loo xiri karayo amaba xorriyaddoodii looga qaadi karayo marka arrimaha noocaasa runtii khatarteeday leedahay waa arrin hadday hadda sidaan ku socoto walaac badan keeni karaysa annaga kawarahaan walaac badan bay runtii ayaan u aragnaa in shacabkii jibdil iyo xadhig aan loo miidaandayn lagu sameynayo marka arrimaha noocaas waxaan dhila xukuumadda waa ka waantooda aan kaa dhex kala mudane markaad isdhihi kartaa arrimaha noocaan oo kale ah cagjuuleynta iyo xiriga waxaa dib loogu laaban karaa waxyaalihii aadka u fuxmaa ee ka dhici jiray deegaanka wariyaas waad mahadsan tahay lama qariibsan karayo sideedaba marka ay falal xukuumaduhu ay jariimooyin samaynayaan hal habeen uun dadkao dhan xabsi ma wada geliyaan ama ma wada laayaan tartiib bay ku bilaabaan arrimahani programkii horan oo ka hadlay waa waxa weye waa digniin wey waa warning sign weyaan calaamado waxaa muuqda aan qurux badnayn aad baan u arkaynay maalmahan dambe dariiqada jigjiga laisku caarsanayo hebel baa la xidhay hebel baa la jirjir dadkaasna waa dad kala duwan waxaa arkay fanaaniin baa arkayna la xidhay waxaan arkaynay siyaasiyiin la xidhayo dad shacab oo la jir dilay marka arrimahaas oo dhan waa calaamado aan qurux badnayn runtiina waxay dib noo xusuusinaysaa waktigii midoobaya deegaankan uu soo maray ee xukuumadda ka horreysay dadkuna sidan baa tartiib loogu bilaabay kadib ilaa maaragtay boqolaal kun oo rafligeliya xabsiyada markii dambe marka arrintaasi ma qurux badna waa arrin walaaceeda leh
waana ka digaynaa maaragtay si adag baan uga digaynaa arrintaas iyadana waxaa jirta arrimaha kulley arrimahaasaan ku dhex jirnaa weli waxaa jirta dad fanaaniinka ahaa meesha ayaa dhaweyto ku dhayda waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo ka mid ahayd dadka meeshaasi dadka fanaaniinta ka mid ahayd oo qolyihii hore ahaa cabdi la soo shaqeeyey gabadhaas waxay ka cabanaysay in dhibaato lagu sameeyey dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in guri degan laga saaray gaariga lahaydna laga qaatay runtiina qoraalkan waxaa ka mid ah inay tiri gaariga anigaaba leha oo gaari dowladda siisay maaha so marka waxaa jirtoo kale marka dad iyada la mid ahaa oo fanaaniinta la ahaa lana soo shaqeeyey runtiina la dhigi karo aniga gabadha inkastoon aqoon fiican aan usi lahayn dadba sidaad axmed badur oo kale ninka la yidhaahdo nin wuxuu ahaa runtii marka laga hadlayo deegaanka dhibaatooyinka ka dhacay qeyb lixaadli ka qaatay markay noqoto xagga suugaanta weliba waxaa lagu eedayaa inuu ka mid ahaa new booliska marka ma dhici kartaa xitaa meesha cadaaladda la xubaa baasin baa ka jirta oo xitaa dadkii la soo shaqeeyey tarjiimkii hore ama dhigacabkii hore baa la kala fadilaya xukuumaddan ay samaynaysaa waad mahadsan tahay mar kale gabadha hadda specific uga hadasho wax laga yaaba inaan anigu dul istaagin suuragal laakiin saad sheegayso haddaan si guud uga hadallo waxa weeye laba qodob baan kaga jawaabi lahaa mid hantida sideedaba hadduu gaadhi hadduu guri yahay labaa loo kala qaada hadduu hanti shaksiya tahay shaksiga xaq leh in lagu xadgudbo maaha hadday hanti dowladeed tahayna waa in sifa sharci yaa marka hore lagu siiya sifa sharci in looga qaado oo ruux miisaan ahaan loo sheego muddohay muddadaas intaa leeg baa maaragtay hantida waa inaad soo wareejisaa waa in la siiyaa digniino ku filan inuu intii loo yimaado guriga ruuxa maaragtay laga xidhamaha albaabka ama alaabta loo soo turturo sida aanu arkaynay walaalkan maxamed alaad oo kale runtii aad buu fadeexad u ahayd arrintaasi xukuumaddan fadeexad bay ku ahayd yani caruur yar yar oo maati ah guri ay degan tahay in maaragtay alaabta loo soo turturo arrin qurux badan ma ahayn laakiin waxay guriga haddii dowladdu leedahay si fashal intii warqad loo soo qoray la yidhaahdo bishaa 2 bilood ama bil kadib ka bax meesha laakiin gabadhan waxay ka cabanaysaa ma aha guriga laga saaray ujeedadeeda inkastoo aan kugu darin waxay ka hadlaysaa waxaa weeyaan dadkii lamidka ahaa iyada weli gurigoodii wax loogu sii daray ayay haystaan waa qodob marka taas weeye qodob muhiim sidaba bulshadu kategoriyaasha ay ka taqeybay hadday fanaaniin hadday yihiin iyo hadday siyaasiyiin waxa fiican in cadaaladda ay bulshadu sinaato anu hadda gabadhaas ma ogi laakiin sida caadiga marka kaga jawaabo waxa weeye labada fanaan ama labada siyaasi waa inay cadaalad u sinaadaan hadday guryaha haystaanna guryaha ama inay guda jiraan ama laga wada qaado hadday gaari haystaan gaarida inay ama wada haystaan ama laga wada qaado waa sida caadiga ee maaragtay adduunka ku shaqeeya weeye marka waxaan dhihi lahaa xukuumaddu hadday arrimahaasi jiraan oo maaragtay cabashooyinka noocaasi ay jiraan xukuumaddu way ogtahay shacabkuna og yihiin waan uga naseexanayna xukuumadda inay arrimaha noocaasa bulshadu ay siinto sababta haddii aan bulshada la siin waxyaabaha ka dhalan karaya cuqdad keenaysa markuu dambe cawaaqib xumo bulshadu inay isnacdo iskaraahsato runtiina haddaad u fiirsato bulshadeena maanta waa arrin aad looga naxawey laga xumaado in si social culture maxay ahaydeen levelkoodii in ay maanta isugu yareen cuqdad badan ay abuurantay xasaasiyad badan ay abuurantay arrimaha noocaasa xukuumaddaa la rabaa inay hogaaminta qaadato oo ay bulshada maaragtay ku hogaamiso waddo siman cadaalad kala dambeyn iyo is-ixtiraam marka arrimaha noocaasa si biikhtisaar xukuumaddu si cadaalad ah ku dhaqdo ayaan leeyahay aad baan maasantahay mudane waxaa jirta baryahan baraha bulshada waxaa ka socda dagaal u dhexeeya mustafa cajab iyo saxaafadda horta wuxuuna dagaal ku wajahan yahay tv-ga loo yaqaan nabadda tv-ga keliya ee madaxa bannaan ee deegaanka jiran wey tv-gaas isaga ka waran ahaan marka sidee u aragtaan saxaafadda horta ah ma loo baahan yahay maxayse tahay muhiimadda ay saxaafadda horta u leedahay deegaanka Soomaaliya su-aashani waa su-aal muhiim saxaafadda horta iyo maalmahan buuqa aad moodo inuu ka dhexeeyo xukuumadda iyo saxaafadda horta oo aad moodo inuu shiishka uu saaran yahay maalmahan tv-ga la yidhaahdo nabad tv horta waxaan leenahay waanu hambalyeynayna nabad tv si shaksiya sababto ah waa saxaafadii koowaad ee inta aynu maaragtay deegaankani jiray oo xor ah oo ay intay deegaanka timaado ka hawlgasha waa wax lagu faano weeye maanta bulshada Soomaaliyeed iyo xukuumaddu waxay inay ku faanaan bay
nabad TV nabad TV iyo kuwa kaloo badan oo loo baahan yahay marka haddaan usoo noqno su-aalahaaga maaragtay muhiimadda saxaafadda iyo xorta ah runtii dagaalkani amin hadda saxaafadda lasoo marinaya ay ku wajahaan nabad TV anugu ma arko wax hadda maaragtay runtii muhiimad maanta in maaragtay dagaal laga dhex abuuro xukuumadda iyo nabad TV dagaal ku wajahan nabad TV in maanta halkaas gaaro ma arko wax hal ah wax wanaagsan ma arko shakhsiyan waxaan u arkaa arrin aan loo baahnayn saxaafaddana waa saxaafad xora si private loo leeyahay haddii ay jirto waxay soo tibinayaan wayn wada aragno wax arrimaha bulshada ku saabsan arrimaha noocaasa marka waxay in loogu bogaadiyo in lagula dagaalameen waa fikirkan ugu qabo shakhsiyan haddii ay jirto wax maaragtay eedayn ay xukuumaddu ka tirsanayso waxay idin uga yima oo kala fadhiistaan maaragtay maamulayaasha TV-ga waxaa muhiim ah raba inaan kusoo noqdo saxaafadda horta muhiimada intaa laga bulshada u leedahay arrintaas waa muhiim saxaafad bulsho ma noolaan karto saxaafad la-aan saxaafad xor la-aan deegaankeena waxaa caanka ahaa saxaafad aan xor ahayn oo maxay ahaan TV-gan hadda deegaanka ka jira xukuumadii horena xor ma ahayn haddana waxaad waddaa xukuumaddu unbaa danaheeda keliya ku fashito ku maamulata bulshadu waa inay heshaa waxaa la tilmaami karaa bulsho inay maaragtay wacyigeeda siyaasiga ama cadaaladeedu horumartay marka ay hesho media xor ah oo qofka shaksiga deegaanka degan ama siyaasi ha noqdo ama shaksi ha noqdo uu fikirkiisa cabari karayo isagoo cidna ka cabsanay isagoo warqad loogu qorayna lalahayn wax qor waa inu naqaanay maxay yaday TV-gan xukuumaddii ka horreysay in ruux la dhihi jiray isagoo la daba taagay saa dhex waxyaaba ceeb ay ku haysaa marka waxaan dhihi lahaa bulshadu waa inay heshaa saxaafad xora waa inay si rabaan u cabiri karaan fikirkooda waa inay freedom of assembly heli karaan freedom of press arrimahaas oo dhan waa waxyaabaha asaasiga u ah inay bulsho jirto oo noolaato oo ay ku talaabato hormar haddii bulshada la cabiro waliya TV-ga maanta xor bayn maraykan baa joognaa TV-gaagana si xor u shaqeeyaa cid dawladda maraykan ka mid intay noo timaado ina dhihi karaysa maxaad u waraysanaysaa hebel ama adiga wariyaha intii lagu soo qorbuleys hebel weydiintaas taasna ma weydiin karta ma jirto waana waxyaabaha ay maanta reer galbeedku ama dunida horumarta ay ku horumareen weeyaan marka waxaan leenahay xukuumaddu soo dhaweysay maaragta saxaafadda horta TV-ga nabad iyo kuwo kaloo fara badan baa loo baahan yahay maamulayaasha TV-ga nabadna waxaan leeyahay si shakhsiya waad ku mahadsantihiin shaqadaad bulshadiina u haysaan sii wada waxay ka mid tahay halganka aan ugu jirnay in bulshadeena la gaarsiiyo horumar dhinac kasta ah laakiin mudana kaa dhex gala arrinta sida dowladda ama maaragtay maamulka Mustafa Cagjar markuu ka hadlayo TV-gan nabad wuxuu sheegaa in ay ku xadgudbeen sharciga saxaafadda runtiina dadka intiisa badan ma aaminsan arrintaasi marka idinka uu rahaan marka arrintaasi sii warkaa way jirtaa kolba waxa weeye haddii ay jirto eedayntaas ay xukuumadda hadda sheegtay hadday jirto oo maaragtay saxaafadda ku xadgudbeen shuruucdii saxaafadda waxay ahayd si sharci sifa sharci u soo maraan oo aan Facebook la iska dhaleecaynin oo la iska eedaynin waxba Facebook ma xalinayo tawaamid ka urur ahaan anagu waxaanu aragnaa intaan anigu arkayay TV-gani waxa uu inta badan soo daayay arrimaha bulshada dad masaakin oo tabar daran dad biyaraan hayso xaafadaha jirjir ka mid ah deegaanadii miyiga inta la qaybinayo raashin loo qaybinayo dad dayacan arrimahaas waa arrimaha loo baahan bulshada la hor keeno dowladda loo keeno si ay wax uga qabato ma arkin haddii ay jirtana waxa fiican leh dowladdu inay noo soo bulshada la wadaagto qodobada ay ku eedeynayso maaragtay jira hase yeeshee haddiiba ay tuhmeen inuu jiro in wax lagu xadgudbay in Facebook la isaga jawaabo oo maxay yahay Facebook maxay yahay la isku kiciyo maxay yahay shuush dhalinyaro abaabulo maxay yahay mu'assisiinta TV-ga ama TV-ga ama si shakhsi ah la isoo caaya ma qurux badna arrin qurux badan ma aha maxay yahay si nidaam dawli ah wada sax loo maro si sharci loo maro eedeymaha loo keeno maamulka TV-ga kadibna ayaguna iska difaacaan bay sida quruxda saas weeye aan kula talin lahaa maanta xukuumaddu inay waddo noocaas u marto balse ayna xal ahayn in la iscaayo la isaflagaadeeyo la isugu hanjabo TV-ga ama la xidhi ama sida marka la sameeyo TV-ga waxa weeye TV-yada horta ku mid ah midalaan qowmiyadaha inagu xeer Oromiya kaliya haddii maanta la fiiriyo inta TV ay xor ay leeyihiin boqolaal TV leeyihiin ahmaarada soo kale cid ka hadlaysa TV-yada ma jirto marka maxaa deegaanka Soomaalida halkii TV u horreeyay loo baahnaa in la dhiirigeliyo oo waliba dawladdu inay dhaqaale ku bixisay ahayd oo tababar siiso dhalinyarta intay saxaafadda u furto tababar saxaafadeed siiso inay dhahaan shaqaysta ahayd
كو إلا تقالي شغالة أقول لها برشة تقالي كسول قل لها لا بوعي صحافة برشة كربوك على صدق دانت الحكومة الوجود تاعين ما لا إن جاري كريم إن يحوكهش دولة الحكومة ده الوجود تاعين إن صحفي ملح بنان توبه ميجا كسور ربحنا ميجا مركا كنتي أنا وحني لها يلا عقبضين يلا سياسيين وأهل مهمة بالشدة على ما نوعنا كذا. Yeah,